asbaabta qofka ugu kaalmayn karta in ilaahay risiq wanaagsan siiyo marka uu dadaalo ee uu raadiyo ee uu waqti badan geliyo ee uu dhiido kadib waxyaabo uu kaalmaysan karo oo ugu kaalmaynaya in ilaahay arsaaqda u furo ilaahay una fududeeyo risiqa uu helayo ee xalaasha laba sababood baynu soo qaadan oo quraanka iyo sunnadu inoo sheegeen jumcada dambana qaybo kale aan ku dari doonaa haddii alla yidhaahdo waxa koobaad ee asaaska weeye ilaahay cabsidiisa wey adduunyada ilaahay baa iska leh isagaana maamula intaan haysannana isagaa ina siiyey intii horena shukri bay u baahan tahay oo cabsida ilaahay ka mida ilaahayna wixii uu kaa reebay inaad iska ilaaliso wixii uu kuu diray inay samayntooda aad ku dadaashaa lagaa doonayaa ummaddu si guud hadday alla cabsigu bato khayrka risiqa bata alla ka cabsigu guud hadduu yaraadana khayrka risiqa yaraada asbaabta risqiga aasaas waxaa u ah roobka samada ka yimaadaa u ah dhulku isaguu ku waraabaa waxa la cunoo dhanna biyahaasaa laga beeraa haddii roobkii la waayo wixii la cunayo soo baxay waa yaraanayaa ama waa la weynayaa xooluhu waxay cunayaan isagay ka soo baxaan xoolahana in cunto iyo in sibaa loogu noolyahay cid hilibkeeda cunta cid iibsata caanaha cid cabta iyo cid iibsata iyo cid ku noolaata iyo cid ka ganacsataba xoolihii iyo dadkiiba biyihii la cabbayey kuwii lagu noolaa kuwii wax laga dhisayay saa darteed bilaahay ku soo ururiyey risiquba roobka inuu yahay wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun culimmada mufasiriintu risqukumta waxaa looga jeedaa roobkiibaa idinka yimaada roobkaa markuu yimaado baa waxa kaloo dhan kala furfurmaa abaari markay timaaddo xooluhu waa dhammaadaan badarka iyo beerta iyo dhirtuna way baaba'aan dadkuna kama dambeeyo saas darteed aasaaskii roobka iyo risiqii imanayey iyo barakadii dhulka ku jirtay alla cabsidii bay ku xidhantahay in kastoo dadku bilyanis gaaraan khayrkan dhulka ku jiraa ka badan baahidooda laakiin wuxuu yaraadaa oo ciriiri noqdaa markii macsiyada iyo dunuubta ay badato suurat alacraaf ilahi wuxuu ku leeyahay walow anna ahla alquraa aamanuu wattaqow dadkan magaalooyinka iyo degmooyinka iyo dhulka degani hadday iimaan iyo alla kacabsi isku dari lahaayeen lafataxnaa calayhim barakaatin min aلsamaa'i wاlard cirka iyo dhulkaba barakadaan uga furi lahayn cirkana roobkiisaan soo dayn lahayn dhulkana waxa khayraad ee ku jiraa soo bixi lahaa maxaa loo sii dayn waaye kan loo furi waaye kanna loo furi waaye walaakin kadabuu wayse beeniyeen faakhadnaahum bima kaanuu yagsibuun dembigay galeen baanu u qabanno waxa haysteed aragteen ee ciriiri iyo dhibaato iyo risiq yari iyo gaajo iyo faqri ah waa cabsidii la'aantii iyo beenintii iyo dembigii waay khayrka dhulku waa inaga badan yahay ka cirkana ilaahay baa gacanta ku haya soomayda arag aadamuhu inta ay yihiin iyo un iyo hadday isu tagaan may cirka daruur keeni karaan dhibic roobase ka keeni karaan abaar baa laga digayaa dadka ha loo gurmado roobba hadduu imin waa yaxaad samayn roobka yaa keena rabbi baa keena subxaanahu wa tacaala dhulka ma dad baa wax ka xoog kaga soo saari kara rabbin baa ka soo saari kara annaa sababna almaaa saban uma shaqaqna alarda shaqan faambatnaha fiiha xabban wacinaban waqadban wazaytuunan wanaqlan waxadaa'iqa gulban marka rabbi hadday ka cabsadaan buu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala barakada cirka waa u sii dayn lahayd tan dhulkana waa u sii dayn lahayd laakiin maxaa loo sii dayn waayey albaabada loogu furi waayey dembigay dadku galeen baa loogu dowgalay waay fii suurati اljin ilahi wuxuu yidhi waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan kadaqan jidka alla hadday ku toosnaan lahaayeen roob badan baan siin lahay roob haddii la siiyeyna nicmadii waa dhammaystiranta ayadana ku imtixaani lahayn khayrkana waa laysku imtixaanaa dhibkana waa laysku imtixaanaa haddaan saa ilaahay uga cabsanno saasaa inoogu fududayn lahaa risqi marka ilahay suuratu alaaq wuxuu ku yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan
qofka ilaahay ka cabsada dhib kasta oo yimaada meeluu ka baxa buu siiya uu ka badbaadiyaa gaajada iyo xoolo yaraanta ka waran wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib meeluusan filaynin baa ilaahay uga deeqaya albaabada uga furaya soomadahan soomaalidu ilaahay baa dubay ugu dhuftay hebel qof waxba laga waayey buu kaa siinayaa waxaad arkaysaa sharikado waaweyn oo xoolo aad u fara badan diyaariyey oo mashaariic waaweyn diyaariyey oo daraasaad iyo diyaariyey haddana eber baxay nin in yaroo miskiinoo la wareegayey meel yar gashaday oo u bulaashay baad arkaysaa waxaad arkaysaa laba qof oo isku lacag ganacsi wada geliyey oo isku meel ka wada shaqaynaya midna eber baxayo midna ay bulaalayso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dunidan maamula wayarzuqu min xayثu laa yaxtasib meeluusan kaba filanaynin baa looga furaya albaabada isagoo dadaalay oo wixii loo baahnaa la yimid dadaalkiisii iyo dhinaciisii oo inuu dhidido la doonayo waan iska fadhiyaa dadkaan fadhiya waan wardiyaya cabsidu maaha ilahay inuu ka cabsado dadaalka cabsida ilaahay waxaa ka mid a inaad dadaasho ood kasabkii raadiso ood dhidido ood ka lahdood habeen guurayso ood soo jeedo maalin kululaato wey kadibna ilahay waa ku arsaaqaya waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu qofkii sidaa u raadiya ilaahayna ka cabsada kuna kalsoonaada ilahay waa ku filan yahay walidaalika xadiidkii cumar wuxuu ahaa nabigu inuu yidhi low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakuli larazaqakum kamaa yarzuqu اطayra tabduu khimaasan wataruuxu biطaan haddaad ilaahay si saxa u tala saaran lahaydeen wuxuu idiin arsaaqi lahaa sida uu shimbirta u arsaaqo shimbirtu akawnna uma fura bakhaarna kayduma yaallo sanadna meel waxba dhigato nabigu wuxuu yidhi subixii waagu wuxuu baryaa iyadoo gaajaysan oo bog laalan bay ka dhaqaaqdaa habeenkii iyadoo dheragsan bay soo galbataa iyadoo shimbirta laynoo tilmaamay tala saaradku xadiidkan wuxuu inoo fasiray tawakul muxuu yahay tawakul wuxuu yahay saa shimbirtu samaynayso rabbigeedna waa ku kalsoontaho waa aaminsan tahay dadaalkeedana way bixinaysaa taqduu khimaasan subixi waa ka lahdaa shimbir meel iska fadhido risiq baa iima yireen miya aragtaa waa duushaa xagga ka deg xagga tag xagga u duul geedkaa deg gurigaa ku deg xagga orod orodka waa ordaysaa saaka way gaajaysnayd jeeb lacag uguma jirin akowna meel uma oolin cidna wax uma haynin bakhaarna waxuguma kaydsanayn caawana waa dheragsanta saasuu ilaahay idin deeqi lahaa haddaad dadaal saxanna bixisaan ilaahayna ka cabsataan isagana ku kalsoonaataan oo tala saarataan kalsoonaanta iyo tala saarashadaasi waa qofka ilaahay xasuusan ilaahay ku kalsoon aakhiradiisu ku weyn tahay oo ilaahay cabsidiisii haya wey qofkaasi dunida ilahay waa u fududaynayaa walidaalika nabigu yidhi qofka hamigiisu uu yahay aakhira uu ku weyn tahay ilaahay baa arrintiisa u ururinaya jamaca allaahu shamlah xaaladiisa ilaahay baa u ururinaya wa jacala ghinaahu fii qalbii qalbigiisana qof iimaan qaba oo iimaanku saa niraana qanjaha joogu noqonaya waatat iddunya wahuwa raaqima adduunyadana iyadoo qasbanoo san dullaysan oo sanka ka duran bay u iman qofkii laakiin niyadiisi iyo fikirkiisoo dhanba adduunya un ka dhiga ilaahay baa arrinta ka kala daadinaya labada indhood baana faqriga loo saari hadday jeebabku buuxaan ma arko faqriunbuu arkaa gaajagacabsinbuu arkaa xoolihiisa uma muuqdaan bakhaarka u yaalla uma muuqdo akawn buuxa uma muuqdo faqri markuu saa indhahu kala qaadaba faqri iyo gaajagacabsinbuu arkay naftan baa ka bixi isagoo ugu xoolo badan dadka iyo ugu gaajaje ugu cabsi badan yahay uguna dhibaataiyo rafaad badan yahay adduunyadana wixii loo qoray waxaanayn heli maayo taasi waa cabsidii ilaahayoo abwaabtii risqiga iyadaa laynoogu furaa cabsida ilaahay haddaan laga cabsaninna abtaab risqiga la iska xira xadiid ibni cumar baa wuxuu ahaa shan baa keentay 5 dembi buu nabigu sheegay 5taa dembi 5 dhibaatay keenaan waxaa ka mid ahaa haddii zakada la bixin waayo ilaahay roobku ka joojiyaa dadka haddaynan ahayn xoolahaas aan dadka ahaynee ilaahay subxaanahu wa tacaala roobba ma siiyeen walowla albahaa'imu lam yumtaruu xoolaha iyo dadka xayawaankaa kale haddaynan ahayn dadku dembigay sameeyeen dhinac roobba lama siiyeen nag ha dhahaan wax walba roob la'aantii zakada la bixin waaye kitaabka ilaahay oo in lagu dhaqmo laga tegayna 3 bay keentaa buu yidhi niman madaxa oo daalimiina oo ummadda kala gaabiya xoolaha dhaca dumarku sada dadka laaya barakiciya qoorta isu geliya baabi'iya oo daalimiin ah
noloshoo adkaata qaali noqota wax walbuu cirka isku sharay shiddat alma'uunatina waa lagu sallidi maxaa nolosha adag keenay dembi iyo macaasi la galay baa keenay risiqii inuu yaraado maxaa keenay dembiga iyo macaasida dhulka aan ku samaynaynaa keenay ma keenin dhulkaa yar iyo dadkaa badan waa la isku batayna ma keenin arrinta labaadee qofka ugu kaalmaynaysa waa tawbada iyo istikfaarta ilaah inaad barido dikrigiisa badiso isaga dembi dhaaf weydiisato dembigaaga uga soo noqoto nabi nuux qoomkiisii markuu la hadlaayey wuxuu ku yidhi istakfiruu rabbakum baan ku idhi ilaahay dembi dhaaf weydiista innahu kaana gafaaran ilahay waa dembi dhaaf badane yursil samaa calaykum midraaran hadduu idiin dembi dhaafo samadu idinku soo celcelin roobkeeda wayumdidkum biamwaalin wa baniina wiilal iyo xoolana wuu idin siin wayajcal lakum jannaatin beeruu idin siin wayajcal lakum anhaaran biyo webiyo oo durduraya oon kala go'ayna waa idiin samaynaya intaasoo dhan buu ilaah idin siin maxay idinkaga xidhan tahay istakfiruu rabbakum ilaahay u soo laabta towbad keena dembi dhaaf weydiista waa isla sidii nebi huud qowmkiisa ku yidhi yaa qowmi istakfiruu rabbakum waa toolkayow ilaahay dembi dhaaf weydiista yursil isamaa calaykum midraaran roobku idinku soo celcelin wayazidkum quwatan ilaa quwatikum xooggan aad leedihiina ilaah idiin siiyeyna mid kaluu idinku dari maxaa yeelay waa shukrideen ilaahayna wuu ballan qaaday lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid cadaabku kan adduunka dadka ku haystee faqriga iyo gaajada dusha laga saaray wey waayo dembigii iyo dunuubtii iyo macaasidii baa badatay saas darteed wayazidkum quwatan ilaa quwatikum innaga islaamku muxuu inoo jideeyey markay abaaro dhacaan xooluhu baaba'ayaan biyo la waayo hala roob doono soo lama dhihin roob doontu maxay tahay soo baxa idinkoo khushuucsan towbad keeno dadka ha loogu sheego in la towbad keeno istikfaarta ha la badiyo ciidda waxaan naqaanaa takbiir baa la badiyaa fuqahadeena waxay yidhahdeen istisqaha roob doonta salaada istikfaartaa la badinayaa bedelkii takbiirta maxaa halkaa ka garatay istikfaarta iyo towbada iyo roobka iyo khayraadku way isku xidhan yihiin saas darteed inaynu towbad keenno oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanno kadibna ducaysannoon barinno oon dikriga badinno waxaa nabigeena ka soo alay salaam qiso uu nabi nuux ka sheegaya nin dhexmartoo dheerayd baa gabagabadeedii wuxuu yidhi wa subxaana allaahi wa bixamdih dikrigaasi salaatu kulli shayin khalqiga ilaahay oo dhan baa tasbiixda ku tukada wain min shayin illaa yusabixu bixamdihi waay wa bihaa yurzaqu lkhalqu iyadaana risiqa khalqiga lagu arsaaqaa khalqigan waxa loo arsaaqayaay ilahay inay caabudaan ay dikriya tasbiixdii la yimaadaan waay dikri baad ilaahay baad risiq ka rabtaa wakhtigii la baryayeyna waad ka horodaa salaadaad ku jirtaayoo sujuuddii waad mashquulsan tahay saqda dhexee salaatuleylkii loo kacayee samada adduunka ilaahay tu yimaado albaabada la furee ilah le war yaa waxay weydiisanayoon siiyaa waad horodaa haddaad shaqo leedahay waad aadi haddaad qof aybood ka soo dhawaysanaya waa aadi hadduu brogaraam inuu isku dhaafin aad rabtana waa toosi laakiin risiq la'aanna iyo ciriirina waad ka sheegan xilligii ilaahay ducada aqbalayana waad ka horodaa dee labadaa isma qabato inaad dadaal bixisaa la rabaa adoo iska jiifa risiqa lagu siin maayo laakiin hurdo aad jeceshahay oo xilli qabooba ay tahay oo shaydaanku jiifku leeyahay inaad ka kacdoo tukatoo sujuuddood ilaahay baridaa lagaa rabaa si laguu siiyo ilaahay ducadiisa iyo baryadiisa iyo istikfaartii iyo towbadii inaan ku dadaalla asbaabta risiqa la isugu fura waay asbaabta kasabka la isugu hagaajiye wey waxaa lagu waafajin meeshaad ka ribxi lahayd waxaa lagu waafajin shaqadii barakada lahayd waxaa lagaa duwi meelihii khasaaraha iyo boolaha yaa lagaa leexin laakiin adigu dadaalkeeda inaad bixisaa lagaa rabaa ood ilaahay barido oo toobad keento ood ka cabsato naftan xakamayso walilxadiidi baqiya jumcada soo socotaan ilaahayna gaarsiiyo idina kuwa kale ku sheegi doonaaye waxaa laynaga rabaa ilaahayna aan ka baqno dunuubtana aan uga towbad keennoon isaga barino arsaaqda isagaa inoo waasicinaya makaasibta inoo furaya albaabada inoo furaya allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma lamna rushdana wacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha